wargeyska geeska Afrika oo ka soo baxa magaalada Hargeysa ayaa cadadkiisii saaka u daabacay waxa uu far waaweyn ku qoray Imaaraadka Carabta oo la sheegay in uu joojiyay saldhiggii uu ka dhisanayay magaalada Berbera. Wargeyska The National oo ka soo baxa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu qoray in la joojiyay saldhiggii military ee Imaaraadku ka dhisanayay magaalada Berbera. wargeyska oo warbixin ka qoray maalgashiga ay dawladda Imaaraadku ka sameynayso qaaradda Afrika ayaa waxa uu si kooban u sheegay in saldhiggaas military la joojiyay. Imaaraadku waxay saldhig military ku leeyihiin dalka Eritrea ilaa sanadkii 2015 laakiin qorshe lagu doonayay saldhig kale oo Imaaraadku ka sameeyay Somaliland ayaa la joojiyay ayuu ku yiri wargeysku gunaanadka warbixintiisa. laakiin wargeysku muu bixin wax faahfaahin ah oo dheeraad ah iyo in uu warkan ka soo xigtay dawladda Imaaraadka Carabta. madaxweyne Biixi ayaa bishii September ee sanadkii dhamaaday sheegay in madaarka Berbera ee saldhigga Imaaraadku ka dhisanayay laga dhigay mid shacab oo diyaaradaha madaniga ah ay isticmaali doonaan. waxaanu sheegay in madaarka oo ay Imaaraadku dib u dhistay uu noqon doono mid ballaaran oo isku xidhi doona Afrika. garoonka Berbera in badan laga murmaayay Imaaraadku dhisayeen la hawa ciidan iyo ciidanka muxuu yahay laga qoraha ciidankii waan ka wareejiyay waa shabil maanta waxaan noqonayaa habka ugu weyn weygana waxa imanaya kambarigi dhisayay airportka iyo towerka u rogay qalabkii diyaaradda soo degay wuxuu noqon doonaa garoonka ugu weyn marmaraya horta Masar ma barigi lagu soo jiray mid ka weyn waa 5 kilomitir oo ka weyn oo dhinac walba u banaan oo badii ku yaala oo cusub marka qalabkiisa lagu daro waxaanu ku talagalaynaa inuu noqdo garoon dekada ka shaqo badan oo diyaaradaha caalamka u waaweyn ka qaadaan alaabta una gudbiyaan dalalka xiran ka dheereeya tareenka ka dheereeya baabuurta